Adiga ayaa igu riday kalsooni darro, in jacaylkaan aamini waayo, in ruux dambe aan kalsooni u qaadi waayo. Magaca jacaylka, in qalbigayga uu geli waayo. Adiga ayaa sabab u ahaa in aan dhagool noqdo, dadka markay ila hadlaan hadalladooda aan fahmi waayo. Waxyaabahaas oo dhan adiga ayaa sabab u ahaa. Waa qiso xanuun badan oo aan jeclahay in aan la wadaago saaxiibadeyda ku xiran bartayda YouTube-ka ee Socdaal 24. Markaan u guda galo qisada maanta idiin wado, waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Maryamo waxay ka mid ahayd gabdhaha ku nool degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Waxay ahayd gabar aad u qurux badan. Alle ayaana siiyay dabeecad wanaagsan, jooga quruxda sida dheemankii oo kale ayay ahayd. Markii aad aragtana Maryamo, isma aad dhehaysid gabar tan oo kale ayaa dunida ku nool, ama hooyo ayaa ku riyoon doonto Maryamo oo kale inay dhasho. Quruxda waxay ahayd mid si gooni ah loo siiyay. Maryamo waxay dhiganaysay mid ka mid ah iskuulada ku yaalo magaalada Muqdisho. Maryamo waxay ahayd gabar aad u dulqaad badan. Ma aysan jeclayn in dadka ay ku dheesho, sidoo kale ma aysan jeclayn in dadka been iyo waxyaabo aan jirin ay ku wado. Inkastoo jacaylku yahay mid inta badan asaawihiisu uu badan yahay, dadkana aysan ogeyn qofka aad jeclaanaysid, inkastoo aadan qalbigiisa ku jirin, sidoo kale aadna ogeyn qofka aad jeclaanaysid waxa uu yahay. Maryamo waxay jacayl u qaaday mid ka mid ah wiilashii markaas ay iskoolka isla dhiganayeen, ayada oo iga codsatay in aan qariyo magaciisa. Jacayl xad dhaaf ah ayay u qaaday, inkastoo wax walba oo la bilaabayo ay ku bilaabanayaan magaca walaaltinimada. Halkaas ayay walaaltinimadooda ay ka bilaabatay. Way is soo xiriiri jireen, habeen walbana waa ay dhafri jireen, ayaga oo waqti badan wada qaadi jiray. Waqtigooda inta ugu badan waxay ka hadli jireen sidii naftooda ay ku hormari jireen. Qof walba jacayl ayaa hayo, wayna isku soo sheega waayeen jacaylka dhexdooda ka jiro. Inta badan waxay noqdeen laba qof oo saaxiiba. Bareega ma aysan bixi jirin, fasalka ayay joogi jireen, halkaas ayay isku mashquuli jireen. Habeen habeenada ka mid ah, Maryamo ayaa saaxiibkeed ama wiilka ay wada socdeen ku dhahday, haddii aan ku dhaho caawa waan ku jeclahay, maxaad iigu jawaabi lahayd? Markaas ayuu dhahay, wallaahi midaas ma garanayo, laakiin aniga waxaan hubaa in aan kaa aqbali lahaa haddii aad ii soo bandhigi lahayd. Daawadayaal, halkaas ayaan kusoo afmeerayaa qaybtii koowaad ee qisadan jacaylka ee aadka u xanuunka badan. Nagu xirnaaw ilaa iyo qaybaheeda dambe. Waxaan rajeynayaa in wax badan aad ka faa'iidi doontid.